fal argagax leh ayaa goordhow ka dhacay degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Laba nin ayaa la warinayaa in iskooska degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir ay ku toogteen askar taraafik ah, kuwaasi oo kolkii ay dilkaasi ay geesteen iskaga faktay halkii ay dilkaasi ay ka geesteen oo ah iskooska degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Ma cadda ilaa hadda sababta rasmiga ah ee u dileen askartaasi muwaadiniintaasi Soomaaliyeed, hase ahaatee waxa goobjoogayaashu ay sheegayaan inay askartaasi ay u geesteen dil argagax leh. Laba nin oo midna uu ahaa rakaabkii mootada saarnaa iyo sidoo kale darawalkii mootadaasi wadayay. Ninkii rakaabka ahaa ee mootada saarnaa ayaa asaga la xaqiijiyay in naftu deysay, sidoo kalena waxaa dhaawacan loola cararay darawalkii mootadaasi waday. Askartii dilkaasi geestay ayaana si fudud ku faktay, mana jiro ilaa hadda wax war oo ka soo baxay dhinaca hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo la xiriira dilka degdega ah ee ka dhacay goordhow degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir. Falkaani ayaa daba socda falal dilal ah oo hore kaga dhici jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, si gaar ah kuwa ka shaqeeya wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Darawaliinta kaxeeya mooto bajaajta ayaa ayagu waxay yihiin dadka ugu badan ee la kulma dilalka argagax leh, kuwaas oo ay geysanayaan ciidamada ku sugan jadboontiyada iyo sidoo kale isgoysyada magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Falalkaasi ayaana badankood waxay dhacaan kolkii ay wada murmaan mooto bajaajlaha iyo sidoo kale askarta hubeysan ee taagan isgoysyada iyo wadooyinka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhowr mar ayay dilalkan hore u dhaceen, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya ay hore ugu guuleysteen inay soo qabtaan dadka dilalkaasi u geystay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku howlan nolol maalmeedkooda. Hase ahaatee iminka waxay dadku qoys ka muujinayaan in askartaasi ay si fudud ay u fakteen, ayadoo halka ay dilka ay ka geysteen ay ku sugnaayeen askar kale oo ka tirsan laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Ma u baahan tahay tigidh ama fiiso si aad ugu safarto wadamada aad jeceshahay? Xalana Travel Agency ayaa kuu diyaarisay si ay kuugu fududeyso safarkaaga. Tigidhada diyaaradaha oo qiimo macquul ah, adeegyo gaar ah oo kuu diyaarinaya safar raaxo leh, ha ahaato shaqo, dalxiis, xaj iyo cumro intaba. Waxaan khibrad gaar u leenahay inaan kuu soo saarno fiisooyinka wadamada soo socdo: Masar 10 ilaa iyo 15 maalin, Hindiya 10 ilaa iyo 15 maalin, Kenya 3 ilaa iyo 4 maalin, Uganda 5 maalin. Waxaan kuu ballan qaadaynaa adeeg hufan, qiimo ku raali geliya, maxmil qancintaadan ka shaqaynaa 24 saac. Ku xidhnow dunida, dalbo tigidhkaaga ama fiisadaada maanta oo bilow safarkaaga riyada. Wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir WhatsApp nambarka shaashada kaaga muuqda.